بسم الله الرحمن الرحيم maalin wanaagsan kulligiin telefishinada ka soo qayb galay munaasabadda ujeedada waraysigan aan u sameynaya waxa weeye dhowr qodob oo kooban midda koowaad ka siyaasi ahaan ka aqoon-yahan ahaan inaan ka qayb qaato barnaamijka wacyigelinta ee ku wajahan cudurkan dilaaga ah ee coronavirus COVID-19 ee adduunka faraha ba'an ku haya. Adduunku culays weyn buu kala kulmay, waxaana ilaahay ka baryaynaa inuu naga dulqaado, gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed meel kastoo joogto. dhibaatooyinka ka gaaray cudurka inta ku dhimata waa u tacsiyeynayaa, ilaahay jannada ka waraabshan leenahay. inta u jiifta isbitaalladana ilaahay ha u boogadhayo. dhinaca wacyigelinta markaan u dhaqaaqo, waa lala wada socdaa talooyin caafimaad ee bulsho ayaa caalamka oo dhan ka bixinayaa, laga soo bilaabo hay-adda caalamiga ah ee caafimaadka adduunka ee WHO ilaa qaran walba cidda u qaabishan ama wasaaradda u qaabishan talooyinkeeda la rabo in la hirgeliyo. waa ku hambalyaynayaa ama ha ahaato wasaaradda caafimaadka iyo khubarada ku howlan cudurkan sidii loola tacaali lahaa, ama ha noqoto arrinta guddiga qaranka ee ku howlan iyaguna u gurmashada dadka uu soo rida cudurku. sida la tilmaamay in la raaco ayaa loo baahan yahay. maalmihii u dambeeyey tirakoobyada ama statistiska laga samaynaya cudurka ee dowladaha dariskana la ah markii la fiiriyo Soomaaliya u badan. sababta haddii la isweydiiyana waxay ku soo ururaysaa inaan loo hoggaansamin talooyinka ay bixinayaan mas-uuliyiinta qaranka, hay-adaha ku shaqada leh iyo guddiyada qaran ee loo baxshay hawshaas la tacalidooda. taas ayaa sabab u ah. sidaas darteed in la raaco talooyinka iyo tusaalooyinka madaxda u xil saaran ay bixinayso waa loo baahan yahay. ha ahaato in layska ilaaliyo goobaha lagu kulmo oo faraha badan ee dadku ku soo ururaan, ha ahaato isu soo dhowaanshaha iyo ama social distancing waxa la yidhaahdo in la dhowro, nadaafadda iyo sida loo sheegay oo ah gacmaha la dhaqanayo, sanitizerska ama waxyaabaha lagu nadiifiyo la isticmaalo, dadkoo guryahooda ku jira oo dhaqdhaqaaqa la joojiyo. arrimahaasoo dhan waxaad moodaa inay xoogaa ka dhagalayihiin dadkeennu, waana dhibaatada ugu weyn ee keenaysa geerida badan iyo dhibaatada badan ee shacbigeennu kala kulmaya cudurkan dilaaga ah. arrintaas iyada ah waa ku celcelinaynaa. waxaan rabnaa dadku inay guryahooda joogaan, inay isu tegin. waxaa la rabaa dhallinyaradu iyagaa socod badan inay inta baxaan soo noqon cudurka u keenin qoyska ama meeshay tegayaan aanay geynin. arrimahaasoo dhan waxaan rabnaa inay hoosta ka xariiqdo bulshadeennu, ilaahayna aan barino, la ducaysto cudurkan si looga badbaado. waxaan aad uga xumahay ayna tahay waajib inaan sheego, waxaan ka maqlaynaa qalabka warbaahinta waxgarad fara badan oo ka kooban siyaasiyiin iyo culamaa'udiin iyo aqoon-yahanaba oo ay la xun tahay in muxuu ahay masaajidada si ku meel gaara loo xiro oo dadka ayna isu tegin, goobaha lagu ururo inaan la tegin, makhaayadaha iyo hoteelladoo kale in laga joogo. waxaan soo jeedinayaa Soomaaliyey inaan la siyaasadaynin khatarta cudurkan ku haya dalkeen, in bataatanba laga ilaaliyo siyaasad oo awrkacsi iyo dadka in lagu kiciyo in laga ilaaliyo. war haddii kacbadii ilaahay la xiray, masaajidadii Maka iyo Madiine la xiray, waxa loogu doodayo in masaajidada la furo dadku ha dhamaado miya?
dadku hadday dhammaadaan yaa lagu eedayaa cudur eebba keenay ee sidii loola tacaali lahay talooyin laga baxsho weeye. waxaan ugu baaqayaa mas-uuliyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan siyaasiyiinta inaan la siyaasadayn, dowladduna inaanay siyaasadayn, mucaaradna inuuna siyaasadayn, muxaafadna una siyaasadayn. waa noloshii ummadeenna waxa aan ku cayaarayno haddii aan dhinaca kale u dhigo. bandowgu inuu faa'iido leeyahay iyo inuu khasaare leeyahay isweydiimayno. waxaa kaloon maqlayaa mas-uuliyiin fara badan oo leh bandowgu sharci maaha. anigu maamul qaranaan ka shaqaynay, waxbaan barannay. waxaa isaga khaldan dadka Soomaaliyeed noocay rabaan ha ahaadaano, xaalad degdeg ah iyo bandow isaga khaldan. state of emergency iyo curfew alla kala yiraahdaa. waxaan maqlayaa mas-uuliyiin ku celcelinaya ma sharciyaysna bandow inta xukuumad golaheed la geeyo oo baarlamaan la geeyo oo la ansixiyo madaxweyne ma saxiixo. bandow waa shaqo maalmeed. jid aad ku socoto haddii dab ka kaco isoo inaad ka leexato maaha. bandow in hay-ado ama golayaal qaran inta la geeyo la sharciyo uma baahna. waxaan rabnaa in casharkaanu dadka anfaco aan loo qaadan xaalad degdega dalku markuu galo. dal hadduu xaalad degdega galo ama waxaa hela duruufo dabiici ah ama waxaa hela kuwa dagaallo ah ama waxaa hela crisis siyaasadeed oo khatar gelinaya nolosha ummaddaas. markaa dowladdu waxay soo rogtaa state of emergency wax la yidhaahdo ama xaalad degdeg ah oo golayaasha iyo dastuurka la waafajiyo sharci laga dhigo. intaas ayaan rabaa inaan uga baxo arrinta ku saabsan wacyigelinta dowrka aan ku leeyahay. aan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayo inay ilaaliyaan, inay raacaan talooyinka la siinayo maalin walba. miidiyada maalin walba waxaa lagala socodsiyaa dadka inta uu soo riday iyo inta u dhimatay. intaasoo cashar inay noogu filantaan qabaa Soomaaliyey. aad iyo aad ayaan mar kale uga tacsiyeynaynaa inta uu galaaftay cudurkaanu, inta isbitaalada jiftana ilaahan u baryana inay bogsadaan. intaa waxaan rabaa inaan ku daro, iyagana waxaa dhacday sidaad maqlayseen magaalada Qardho ee gobolka Bari waxaa ka dhacday iyadana arrin musiibo kale ah, dabiici ah, fatahaado biyo ku soo rogmaday oo buuraha roobka ka da'ayo ay waxyeeleeyeen dadkeenni Soomaaliyeed iyo hantidoodiiba ay burburiyeen. waa u tacsiyeynaynaa intii ku dhimatay, intii ku waxyeelowda ama ku dhaawacantana ilaahaan uga baryaynaa inuu u boogadhayo. sida caadadu ay tahay Soomaalida, shacbiga Soomaaliyeed ee walaalaha ah ee isu gurmada, ee murugada qaybsada, ee farxadda qaybsada, waxaan ugu baaqayaa inay arrintaas ilgaar ku fiiriyaan, inay u tacsiyeeyaan dadka, inay wax taraan inta ku waxyeelowdo xoolo hantidooda ku baaba'da. dowladda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa iyadana inay gurmad degdega la gaarto, inay u magacaawdo guddiyo howlahaas gala, in beesha caalamka loogu qaylo dhaamiyo dadka guryahooda burbureen oo hantidooda burburtay in la siiyo kaalmo la siiyo. kaalmaduna waxay ka bilaabataa Soomaalidu inay iskaalmayso. waa dadkeenni dadka wax noqday. intaas ayaan iyadana uga harayaa. waxaan ku darayaa fatahaadaha webiyada iyadana roobabaa daay, fatahaadaha dhacay, iyagana dadaa wax ku waxyeelooba Soomaali ah ama dhaqaalahoodii wax ku noqdeen ama naftooda. marka iyagana waxaan ugu baaqayaa sidaas oo kale in gurmad lala gaaro.